wari baraha bulshada ma ku aragtay Soomaaliya oo la madalsan Tanzania tartanka Chan Cup oo la ciyaari doono bisha January haddaba sidoo u dhacay isku aadka tartankan muxuu yahay tartankan imise kooxood ayaa ka qayb qaadanaysa imise heer ayaa la soo maraya Soomaaliya wadada u taal hadda inay maraan maxay tahay sideese ayay uga soo gudbi karayaan hadda heerka ay ciyaarayaan ma isreebkii koowaad ba mise waa heer groupyo arimaha iyo kuba kale ayaan kugu faaqidi doonaa muuqaalkeenan saaxiib haddii aad si daawatid laagi noo saar si share garay waxay kula tahay qaybta hoose ee fikirka inuu ugu soo gudbi koobka qaramada Afrika 2022 oo loo yaqaan Total African Nation Champions sidoo kale Chan 2022 ayaa noqon doona koobkii toddobaad ee tartamada qaaradda Afrika tartankan kubadda cagta ah labadii sanaba mar ayaa la qabtaa waxaana si qaas ah tartankan uga qayb qaatay ciyaartooyda ciyaara horyaalada wadankooda wadanka Algeria ayaa nasiib u yeelan doona sanadan martigelintiisa tartankan markii hore waxaa loo qorsheeyay in la ciyaaro 10 Luulyo ilaa 1 Agost 2022 laakiin CAF waxay ku dhawaaqday 10 Sebtembar 2020 in tartankan dib loo dhigay ilaa January 2023 kadib dib u dhagistii 2020 ee African Nation Championship iyo 2021 dib u dhagistii African Cup of Nations sababo xanuunka faafa ee COVID-19 dartii si ka duwan koobka qaramada Afrika xulalka qaran ee tartamaya waa in ay ka koobnaadaan ciyaartooyda u ciyaaraysa kuwa ka ciyaara horyaalkooda gudaha oo kaliya tusaale ahaan ciyaartooyda Soomaaliya u ciyaaraya waxa kaliya ee lagu qaadan karo waxa uu noqonayaa inay ka ciyaaraan horyaalka gudaha ee Somali Premier League toddobaad dhaweyd magaalada Qaahira ee dalka Masar waxa lagu qabtay isku aadka isreebka koobkan qaramada Afrika ee sanada 2022 waxa la arkay isku aadka kooxaha Nigeria iyo Ghana kuwa oo u soo bixitaankooda tartankan iyaguna meel halis ah ay tagi doonto nidaamka u soo bixitaanka ee tartankan ayaa lagu saleeyay natiijada saddexda kulan ee hore aad ciyaartid ee Chan taa oo ka dhigan in Ghana iyo Benin ay ahaayeen xulalkii ugu hooseeyay kulamadii ay hore u soo ciyaareen isla markaana ay iska hor imaan doonaan ciyaaraha isreebka gobolada markay iswajahayaan wadartii guuleysata kulankaasi waxay wajihi doonaan Nigeria wareegga ugu dambeeya aaga galbeed ee Afrika isku aadka tartankan sanadan waa la balaariyay waxaana iskugu soo baxay ilaa 46 wadan oo qaran waxaana marka ugu horeysa ka qayb qaadan doona ilaa 18 xul inta kale hawada ayaa loo tuuri doonaa horaantii isbuucan xiriirka kubadda cagta Afrika ee CAF ayaa ku dhawaaqay in la kordhinayo tirada xulalka 16 kooxood ee ka qayb qaadanaya tartankan CAF waxay xaqiijisay in sanadan tartankan uu ka koobnaan doono ilaa 5 group saddex ka mid ah group-yadan waxa isla gali doona 4 wadan halka labada kalena ay ka koobnaan doonaan min 3 wadan oo kaliya tan waxay la micno tahay in labada kooxood ee ugu sareysa 4 kooxood ee wareegga 8 iskugu soo bixi doonaan waxaana ku soo biiraya oo kaliya labada group ee min 3 hal kooxood oo ka soo baxaya Algeria oo martigelinaysa Morocco oo koobkan difaacanaysa iyo xulka waqooyi Afrika ku yaala ee Libya ayaa hore loo xaqiijiyay u soo bixitaankooda tartankan Zimbabwe waxa lagu daray isku aadka isreebka aaga koonfureed inkastoo hadda FIFA ay ka mamnuucday ciyaaraha caalamiga lagana tuuray isreebka koobkan dib u dhacyada uu sababay cudurka musiibada ah ee COVID-19 iyo koobka adduunyada ee Qatar ee bilihii November iyo December la ciyaari doono ayaa u muuqda sidoo kale in ay saameyn ku yeelan doonaan finaalka Chan Cup oo la qorsheeyay 8 ilaa 31 January 2023 gudaheeda dhammaan kulamada isreebka ah ee tartankan waxaa la ciyaari doonaa 2 lugood iyadoo guuleystayaashu ay soo bixi doonaan wadar ahaan markay guuleystaan ku dhawaad 5 kulan kulamada lugta hore ee wareegga koowaad waxaa la ciyaari doonaa inta u dhaxaysa 22 ilaa 24 July lugta labaadna waxaa la ciyaari doonaa 7 kadib labada xul ee Morocco iyo Libya oo 2 jeer koobkan difaacanaya ayaa ah xulka kaliya ee aan soo gelin isreebka koobkan
waxayna sidoo kale ugu dambeyn la midoobi doonaan xulka tartankan martigelinaya ee Algeria. Masar ayaa mar kale dooratay inaysan ka qaybgelin tartanka, halka Tunisia laga ganaaxay kadib markii ay xilli dambe iskaga hareen ololihii isreebka ee sanadii 2020. wadamada Western Zone ee la isku yiraahdo waxaa ka soo muuqanaya dhammaan 9kooda wadan. isreebka koowaad ayayna ciyaari doonaan waxaana ka soo baxaya 9kooda 3 kooxood oo kaliya. wareegga koowaad Liibiya iyo Senegal ayaa ciyaari doona, Sierra Leone iyo Cape Verde, Gambia iyo Guinea Bissau. wareegga labaad Liberia iyo Senegal tan soo adkaata Guinea ayay la ciyaari doontaa. Sierra Leone iyo Cape Verde mid soo baxdana Mali ayaa sugaysa. Gambia iyo Guinea Bissau-na waxa ay la ciyaari doonaan labada mid soo baxda Mauritania. Aagga galbeed ama Western Zone dhammaan 7 kooxoodba waxa ay soo mari doonaan isreeb adag. 3 kooxood ayaana ka soo bixi doona. Ghana iyo Benin ayaa wareegga koowaad ciyaaraya. wareegga labaadna Ivory Coast iyo Burkina Faso ayaa balansan. Togo iyo Niger, Ghana iyo Benin mid soo baxdana waxay la ciyaari doontaa Nigeria. wareeggan aagga dhexe ama Central Zone Africa wadarta 6 kooxood ee ay ka kooban yihiin waa wadamada ay halka ka kooban yihiin way ciyaari doonaan isreebkan. 3 oo kaliya ayaana ka soo baxaysa. Sao Tome and Principe ayaa laga ganaaxay tan markii ay ka baxday isreebkii 2020, halka Gabon ay doorbiday inaysan tartankan soo galin. Central African Republic waxay la ciyaari doonaan Congo, Equatorial Guinea, Cameroon ayay la ciyaarayaan wareegga koowaad. Chad iyo DR Congo-na waa ay balansan yihiin. wadamada bariga dhexe ama Central East Zone oo aynu ku jirno isku geentooda 9 kooxood ayaa ka qayb qaadanaya isreebkan, waxaana soo bixi doona 3 kooxood. Eritrea iyo Kenya kama qayb qaadanayaan tartankan. wareegga koowaad Ethiopia South Sudan ayay la ciyaari doontaa. Soomaaliya, Tanzania ayay la ciyaaraysaa. Burundina, Djibouti ayay la balansan tahay. wareegga labaad Ethiopia iyo Sudan mid soo baxda Rwanda ayay la ciyaari doontaa. Soomaaliya iyo Tanzania mid soo adkaata waxay la ciyaari doontaa Uganda. Burundi iyo Djibouti mid soo adkaata Sudan ayaa meel u fadhida. aagga ugu dambeeya ee aagga Afrika waa aagga Koonfureed Southern Zone. wadarta 12 kooxood ayaa ka soo qayb qaadanaya tartankan oo aagga ka imaanaya, waxaana u soo bixi doona 3 kooxood oo kaliya. Lesotho ayaa dooratay inaysan ka soo qayb galin, halka Namibia ay ka mid ahayn kuwii habraacyada qayb ka ahaa. waa habraacyadii ugu dambeeyay ee CAF. haddaba wareegga koowaad waxay iskugu aadi doonaan Mauritania iyo Angola. Comoros, South Africa ayay la ciyaari doontaa. Botswana, Eswatini ayay la ciyaaraysaa. Seychelles, Madagascar ayay la ciyaari doontaa. Malawina, Zimbabwe ayaa la balansan, halka Mozambique iyo Zambia ay wada ciyaari doonaan. wareegga labaad Mauritania iyo Angola mid soo adkaata waxay la ciyaari doontaa Comoros iyo Koonfur Afrika mid soo baxda. Botswana iyo Eswatini mid soo baxda waxay ku dhici doontaa Seychelles iyo Madagascar xulka soo baxa. Malawi iyo Zimbabwe mid soo adkaata waxay la ciyaari doontaa Mozambique iyo Zambia mid soo baxda.